assalaamu calaykum. Maxay nimanka debdemiska ka shaqeeyaa maalin kasta garkooda u xiiraan? Maxay dhakhtarradu u xidhaan maryahan midabka cad leh? Maxay kuwa cuntada kariyaan koofiyadan madaxa ugu xidhaan? Maxaa ka dhaxeeya mucallimiinta iyo duuliyayaasha diyaaradaha? Dhammaan su'aalahaas iyo kuwa kale oo la xiriiraba waxaa laga yaabaa inay maskaxdaada ku soo noqnoqdeen. Waxaan muuqaalkan ku ogaan doonaa su'aalahaas aynu soo tilmaamnay iyo weliba macluumaad ku saabsan shaqooyin aanad hore u maqal una arag. iminkana ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan. ugu horreyn, maxay nimankan damdamisku maalin kasta garkooda u xiiraan? Markay nimankani daminayaan dab meel ka kacay sida guri iyo wixii la mid ah, waxay xidhaan weji gaar ah oo lagu magacaabo self-contained breath apparatus. waana weji wada qarinaya madaxooga oo ay ku jirto haanta oxygentu. sidaa awgeedna waxa laga maarmaan noqonaysa inay garka xiiraan si uu u leekaado wejigani. waxaana iska caadiya oo u mubaaxa inay nimankani deystaan shaaribaha. haddana waxa laga yaabaa inay khatar ku keento oo way iska xiiraan. waa tee shaqada ugu caajiska badan caalamku. waa daawashada derbiga. waa in qofka ka shaqeynaya uu soo qaato kursi kadibna hor fadhiisto uu daawado derbigaas maalin kastana sidan ku soo celceliyo. waxaana sidaa u sameynayaan inay ogaadaan wuxuu gidaarkaasi isbedel iyo dildilaac sameeyo marka la dhiso kadib. si wacanna markay u eegaan oo u daawadaan derbigan, waxay ka bixinayaan faahfaahinno iyo warbixinno dheeraad ah oo ku saabsan gidaarkan cusub. waa tee shaqada ugu halista badan caalamku. waxaa lagu qabtay Jarmalka daraasad lagu baarayo arrintaas, waxayna natiijadii noqotay in shaqada dhirjaridu tahay shaqada ugu halista badan caalamka. bal qiyaas adigoo lagaaga baahan yahay inaad jartid geedkan xajmigiisu intan leegyahay, welibana ka jaraya kaymo bartankooda, haddana aan lagu damaanad qaadan in laga ilaaliyo xawayaanada ka soo weerara keynta. inkastoo ay shaqadani khatar badan tahay, haddana shaqadan suuqeedu wuu wacan yahay oo dad badan baa isqora. waa maxay shaqada ugu la yaabka badan caalamka? waa shaqada daryeelka xawayaanka lagu magacaabo panda. panda nani xawayaankan laga helo gobollada buuraleyda ah ee galbeedka Shiinaha. waa xawayaan aad u dhib badan. marka horena waxaad moodaysaa inay sahlan tahay daryeelkiisa iyo ka shaqayntiisuba, laakiin sidaad moodid maaha. waxaanay ka qaadanaysaa fadhiisintiisu waqti badan haddii aanad la miciisan qof kale. sidoo kalena waxaa kugu waajibay inaad dadaal badan gashid si aad u siiso fiiro gaar ah lagaagana eedin shaqada. maxay markasta dhakhaatiirtu u xidhaan dharkan cadcad? cilmiga qiyaasta midabadu waa cilmi ka hadla saamaynta ay midabadu ku yeelan karaan ibni'aadanka. waxaanu sheegaa in midabka cas ama guduudkii ka turjumayo saamayn, midabka cagaarka ahna deganaan, halka midabka cadna ka turjumayo awood iyo firfircooni. sidaa awgeedna dhakhaatiirtu u xidhaan maryahan cadcad. laakiin dhammaadkii qarnigii 20aad waxay isku dayeen dhakhaatiirta Ingiriisku inay beddelaan midabkan cad ee dhakhaatiirtu xidhato. inkastoo ay ku fashilmeen, waxaanay ogaadeen haddii beddelaan inay saameynayso kalsoonida u dhaxaysa bukaanka iyo dabiibka. maxay cunto kariyayaashu koofiyadan madaxa ugu xidhaan? sidoo kale cunto kariyayaashu waxay xidhaan dhar cadaan ah, waxaanay dabcan ka turjumayaan nadaafadda. laakiin maxay ka micno tahay inay koofiyadan madaxa ku xidhaan? sababtu waa inay timaha madaxooga ka ilaaliyaan cunnada ay sameynayaan. haddaba miyaad soo aragtay shaqo ka yaabisay shaqooyinkaas aanu soo tilmaamnay? waa hagaag, waxaanu sii raacin doonaa muuqaalka shaqooyinka loo yaab leh. shaqada lagu tababarayo ayda badda gudaheeda. shaqadan waxaad ayga tababaro ugu ahaanaysaa badda gudaheeda. adigiyo ayguna waxaad wada fulaysaan saxaarad adigoo badda ku tababaraya ayga. waana shaqo u wanaagsan qofka jecel badda, cadceedda iyo xawayaanadaba. shaqada laga baarayo dheemanka badda hoosteeda waa shaqo khatar badan, adigoo gaadhaya oo ka doonaya dheemanka ilaa badda gunteeda. waxaana lagu qaataa mushahar badan, mararka qaarna waxaad naftaada gelinaysaa bakhtiya nasiib. haddii ilaahay maqalka kuu barakeeyey oo meel dheer wax ka maqli kartid, waxaad ka shaqayn kartaa oo dhegaysan kartaa jiiska loo yaqaano Parmesan. jiiskan uma baahna in lagu tijaabiyo dhadhamin ama caraf oo kaliya, laakiin sidoo kale maqal baa lagu tijaabiyaa. waxaana lagu dhufanayaa shay si uu dhawaaq u sameeyo. markastuu maqal dheeraadana oo markastuu tayo sare leeyahay. muuqaalkeenu maanta intaas ayuu ku eegyahay. haddaad muuqaalkan ka heshay like saar, subscribe na taabo si aad nagu soo biirtid.